السلام عليكم. dhowrka cisho ugu dambeysay raggan hortiina ka muuqda ayaa baraha bulshada lagu heystay gaar ahaan TikTok. Balse muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa waxa lagu haysto dhan inay yihiin caadifad iyo waxba kama jiraan. Oo ragganina 80% ay saxan yihiin. Halka daawadayaashooda iyo dadka iyaga ku xiran 80% ay qalad fahmeen. Intaan marka muuqaalka ku sii saqin haddii aan arar yar ka horeysiiyo, anuu raggan isma naqaano, waxna iskuma nihin. Soomaalinimo baa isku keenta. ninna waxaa filaya Booramo ka yimid, ninna wuxuu ka yimid Puntland, sida lahjadahooda aan ka fahmay xataa isku qabiilna ma nihin. laakiin kaliya waxaan rabaa in aan xaqiiqada waxay tahay in la wadaago caadifada imika baraha bulshada lala socdaana maxay aan ka daba tago. saddex qodob ayaan la wadaagi doonaa. saddexda qodob haddii aad fahantaan waxa meesha ka socda ma fahmi doontaan. qodobka koowaad waxa weeyaan raggan waxa ay dadka la wadaagaan ay leeyihiin lacag laga sameeyaa ma runba lacag ma laga sameeyaa wax jira ma yihiin. qodobka labaad waxa weeyaan anoo bariga Afrika jooga sida Nairobi, Muqdisho iyo Hargeysa lacag ma ka sameyn karaa. qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa raggan maxay anaga noogu soo bandhigaan oo mar walba inoo la wadaagaan waxan maxay ka helaan maxay iska faa'iidaan. haddii aan ku horeeyo qodobka koowaad oo ah waxan ma runba jawaabta kooban waxay noqonaysaa haa. adduunka kale ka shaqeeyaan waa run lacag laga sameyn karaa $10,000 laga sameeyaa xataa dadka qaar waxay ka sameeyaan $100,000. laakiin si lacag looga sameeyo laba qodob ay u baahan tahay. qodobka koowaad oo ah inaad waxan 100% aad barato ama aad yani 100% aan dhihin laakiin si fiican aad u barato. qodobkaasi barashadana waxa filayaa waa qodob dhalinta ay ku liidan yihiin oo imka xataa waxaan arkay baraha bulshada dad leh raggan si fiican dadka wax ugu ma baraan muuqaalada dhameystiran dadka ma siiyaan si fiican yani dadka wax ugu soo bandhigaan. walaal aad maxay rabtay waxay rabtay fargaaga in wax walba inta lagu keeno afka biyo lagu qabto lagu yiraahdo inaad hooy cabin lagu yiraahdo masaas rabtay. systemka caalamka oo dhan qof sax ku barayo ma helaysid. imika tusaale jaamacadaha kale macallimiinta waxay siiyaan furaha marka la siiyo aqoonta furaheeda marka la siiyo inta kale anaga nagu leeyahay baara. qofka marka isaga haraadan isaga guul u cilqaba isaga raba inuu meel gaaro waa inuu waqti badan geliyaa oo wixii baara uu ka sal gaaraa. hal il oo kaliya inaad wax walba ka heshaan oo wax aan macquul gal ahayn marka iyaga ku sheegaan waxaan inay yihiin wax jiro laga shaqaysan karo waa inaad sii baarto adigu. qodobka koowaad marka waxa weeyaan inaad wixii aad si fiican u barato. qodobka labaad ee lacag aad ugu sameyn kartana waxa weeyaan inaad community haysato. qodobkan dhowr jeer horena ka sheekeeyay inaad community haysato. marka waxaan filayaa inaan isla fahanay qodobka ah waxaan ma sax baa ma shaqeeyaan inaan isla fahanay. qodobka labaad isna fahan ku baahan waxa weeyaan anoo bariga Afrika jooga Nairobi, Muqdisho iyo Hargeysa lacag ma ka sameyn karaa. jawaabta kooban waxay noqonaysaa way adag tahay in aad lacag ka sameyso. waad ka sameyn kartaa laakiin dadka in yar ayuun baa lacag ka sameyn kartaa. sababtoo ah sistamada marka laga shaqeysanayo sida kuwa e-commerce-ga iyo xataa kuwa affiliate-ka ah dadka wax ku iibinayo ma aha Soomaali. dadka wax ka iibsanayana ma aha Soomaali. lacagaha wax loogu iibsanayana way adag tahay dalkaada inay soo gaaraan oo PayPal-na dalkaada kama shaqeeyo system-kana kama shaqeeyo ka wada ganaaxiyin. xataa sistamada lacagaha laga sameeyo sida Clickbank oo kale oo affiliate programma dalkaaga uu ka xanibeeyay walaal kama way adag tahay markaa inaad waxaad iibiso. si wax lagaaga iibsado oo aad lacag u heshan waxaad u baahan tahay in aad dadka gaarsiiso dadka wax ka iibsanayo. dadka wax ka iibsanayana waa reer galbeedka sida ku gaartaan wax u baahan tahay wixii aad bormud garayso oo aad xayeysiiso oo aad lacag geliso. waxaana la yiraahdaa lacag ayaa lacag keenta. imika tusaale ahaan warsamo badaadu ku yiraahdo Shopify account ka furo kadibna wax ku iibi oo markiiba caadifad ay ku qaado ka waran intaad ordo Shopify account ka furato kadibna alaab aad dhigto. alaabta meesha dhigtay ayaa ka iibsanayo. dadka oo dhan waxay dhahayaan Allah hebel ba alaab soo dhigay kaaliya faarax alaabtan ka soo iibsano may wax loo baahan yahay alaabtaadi xayeysiiso meesha taalana aad dadka gaarsiiso oo aad Facebook ku xayeysiiso Google ku xayeysiiso kadibna traffic faraha badan halka aad ka helayso ayaa wax ka iibsan doona. qodobkaasina dhalinta badan ma fahansana. haddii aanu namaano qodobka saddexaad oo ah maxay raggan anaga waxaan nagu soo gudbinayaan simply jawaabta oo kooban waxay noqonaysaa raggan waxay rabaan inay community helaan kadibna communitygaasi lacag ay ka sameeyaan. waxyaabaha ay ka sheekeynayaan oo dhan oo e-commerce leh oo affiliate program leh waxaan oo dhan leh waxa marka dhinac la dhigo waxa ka lacag badan ama isku lacag yihiin YouTube channelka lacagta ay ka sameeyaan. inkastoo dadka Soomaaliya ama bariga Afrika jooga lacag badan baa laga sameeyay oo kun qof haday ku daawato xataa $1 wax ka yaraad ka sameynayso. marka waxaan filayaa in saddexdan qodob si fiican u fahanteen. saddexdan qodob hadaad fahantay wax walba meesha ka socdo waad fahantay. haddaba marka qodobka marka la soo koobo barnaamijyadan waxa lacag ugu sameyn kartaa kaliya inaad community hayso ama community balaaran dad badan oo kugu xiran aad haysato. dadkaasina barnaamijyadan aad u bandhigto marka dadkaas ay lacag badan ka sameyn kartaaba. horaan aan u sheegay anigu oo bilooyin ka hor markii uu soo baxay systemka la dhihi jiray Sweetcoin ayaan anigu muuqaal intaan soo dooyo TikTok-gayga soo dhigay kadibna waxaan muuqaalkaasi ku sheegay dad xasuusataan imkana dib u raaci kartaan. waxaan ku sheegay waxyaabaha la sheegayo dhan dadka Soomaaliyeed isla dhaxmarayaan inaan lacag ka sameyn karin oo u baahan yihiin waxaan community. haddaad community aysanna lacag kama sameyn kartid. dhowr bilood ka hor bay ahayd waxaan fahansanaa dhowr bilood ka hor ayaan fahansanaa. dadkana waxaa loo baahnaa inay fahmaan. marka waxaan dhihi lahaa hinaasaha iska daaya wax fahma caadifada iska daaya $1 wax laguma bilaabo lacag baa lacag keenta. waxaan waxay u baahan inaad waqti gelisaan oo aad barataan si fiican aad u barataan. sidoo kale Shopify baa account ka furtay waxaan ku iibinayaa kadibna meel iska fariisanaya adeer fadhigaaga wax kugu imanayaan. waxay u baahan tahay inaad lacag geliso waqti geliso si lacag aad ugu sameyso. kuna xisaabtan dadka wax ka iibsanaya ma aha Soomaali. inta inaad fahanto ayaa loo baahan yahay caadifada iyo hinaasaha dadkan aad u qabto iyo maagitaankan iska daayeen maadeerayaal. anuu idin la talinaya